da'deedu waxay ahayd 85 sano isagana waxay ka weyneed 25 sano waxay ahayd princess ka dhalatay qoys boqortooyo ah hantideeduna waxay gaaraysay 5 bilyan oo dollar waxa uu ka dalbaday inuu guursado isaguna waxa uu ahaa shaqaale basiid ah oo ka shaqeeya mid kamid ah shirkadaheeda caruurteeda ayaa uga digay oo u sheegay inuu yahay tuug oo uu damacsan yahay inuu maalkeeda dhaco laakiin waxa uu falay geerideedii kadib ayaa dadku rumaysan waayeen taana oo meel cidla ah kaligeed taagan ayaa waxa uu soo dhawaaday nin waxa uu weydiiyay wax la yaab leh waxay ahayd haweeney qani ah ninkeeduna waxa uu geeriyooday isla markaas waxayna haysatay hanti aad u fara badan waxay ahayd mid kamid ah gabdhaha boqortooyada Spain waxay xitaa lahayd qasriyo fara badan ninkii waxa uu ku yiri wax kastood u baahatid ii soo sheeg waan ka caawinayaa waxa uu ninkaani u ahaan jiray shaqaale daacada odaygeedii hore ee dhintay taana waxay la yaabtay waxa uu sheegay ninkan waayo hore uma aysan garanayn waxa kale oo aad uga siyaabiyay markii uu weydiiyay su'aal ka siyaabadantii hore wuxuu weydiiyay maxaad halkan kaliga u taagan tahay janaasada ninkaaga caruurtaadu oo aan kula joogin oo macaaga ahayn waxay si murugo leh ugu jawaabtay inay caruurtoodu arrimahooda ku mashquulsan yihiin oo iyadana iska ilaaween waxa uu ninkii siiyay lambarkiisa waxa uu ku yiri haddii aad ii soo wax u baahatid aniga ila soo xiriir si aan laabasho lahayn si walba hawla tacajubto hawla yaabtay arrinkani waxay aad ugu faraxsanayd in qof kamid ah dadka uu arrinteeda iyada oo da'daas ah uu ihtimaam iyo muhiimad siinayo waxay dareentay inuu ka ihtimaam badan yahay oo ka danayn badan yahay caruurteeda doonaya markay dhimato kaliya inay dhaxalkeeda helaan ninkan oo magaciisu yahay Alfonso waxa uu bilaabay inuu markasta u yimaado suu xaaladeeda ula socdo oo mar walba uga warhayo markastana foolkeeda wuxuu ku sawiri jiray dhool la cadeyn uu ka qoslin jiray si uu ilowsiyo murugadeeda 10 sano kadib xiriirkoodii wuxuu noqday taana iyo Alfonso mid aad u adag oo aad u xoog badan taana wuxuu ahaa qofka kaliya ee la sheekaysato arrimaheeda iyo murugadeeda ay kala hadasho waxa ayna la wadaagi jiray dhammaan mushkiladaha nolosheeda wax walba ay xitaa uga warrami jirtay maadaama ay aad uga heshay Alfonso waxay rajaynaysaa inuu ka mid noqdo qayb ka mid ah nolosheeda xitaa uu odaygeeda ama ninkeeda uu noqdo way og tahay inay tahay habar ayna adag tahay qof iyada ka yar 25 sano inuu guursado waxay jirtay 85 sano isaguna waxa uu ahaa mid la eg ama ay isku da'yihiin mid kamid ah caruurteeda maalin baa si kadisa wuxuu Alfonso ugu soo bandhigay inuu rabo inuu iyada guursado bilowgii hore waxay u malaysay inuu rabo hantideeda oo gaaraysa 5 bilyan oo dollar markaas ayuu Alfonso wuxuu difaacay naftiisa wuxuu ku dhaartay wallahi inuu yiri hal santi inaan ka rabin hantidaada wuxuu yiri waxa kaliya ee aan rajaynayaa waa inaan adiga ka dhigo mid faraxsan waan u qalantaa wuxuu yiri maadaama aanan ka dhaxbaxayn iyada nolosheeda maalin walba soo boqanayo waxa ila qurux badnaatay in ay xaaskayga noqoto waxa uu doonayaa inuu guursado oo uu iyada la joogo xitaa ilbiriqsiga ugu dambeeyay nolosheeda ayadoo ay sabab u tahay hadalladaas uu ku yiri ayaa waxa ay taana sii siyaaday jacaylka ay u qabtay isaga waxaana la iclaamiyay oo ogeysiisyo la bixiyay in ay si rasmi ah ay u guursanayso caruurteeduna way ka xanaaqeenba way la soo hadleen waxay ku dhaheen waliba iyagoon muddo badan la soo hadleen ay la soo hadleen waxayna ka dalbadeen in ay guurkaas baajiso waxayna dhaheen waxaanu hubnaa inuu ninkaasi yahay tuug raba lacagtaada waa nin ma ninka guursanaya habar la eg hooyadiis waxa kale oo ay sheegeen inuu yahay shaqaale basiid ah una shaqayn jiray aabahood waqtigii hore iyadana ay ka dhalatay qoyska boqortooyada makaan iyo meel sarana ay joogto aysan isagoo kale in xiriir la sameeyso ama guursata aysan ahayn balse way ogeytaana in iyagu ay maslaxadooda kaliya ay tahay inay lacag helaan doonayaan oo kaliya Alfonso inuusan waxba ka dhaxlin hantida ay leedahay sidaas darteed way ka diiday dalabkoodii waxayna u sheegtay inay guursanayso wax walba haday sameeyaan aqalgalkii taana iyo Alfonso waxa uu dhacay sanadii 2011 iyadiina waxa kadisa ku noqotay inaysan caruurteedii soo xaadirin xafladii markaas dhacaysay sidaas darteed iyadu ihtimaam maysan siin maadaama aysan iyaguba ihtimaam aysan siinin hooyadooda gurigooduna waxa uu dhisnaa ama guurkoodu uu jiray muddo 3 sanadood ah muddadaas Alfonso waxa uu xaqiijiyay dhammaan riyooyinkeedii oo idil waxay u baxeen si ay u soo daawadaan filimaan seenamada iyaga oo wada jira waxa uu kaxeeyay xeebta ay lugaha la soo galeen oo ay ku soo damaashaadeen sanooyinkaas ay isqabeen si kastaba daa fara badan ha u dhaxaysay waxay ka farxad badnaayeen lamaanayaasha kale oo idil nasiib darro sanadii 2014 caafimaadka taana waa uu soo xumaaday si la dareemayo isla sanadkaasna xanuunkii ay dareemaysay ay u geeriyootay Alfonso waxa ku habsatay murugo aad u daran waxa uu ku dul ooyay janaasadeedii balse caruurteedu waxay Alfonso ku soo eegayeen ilxaasnimo iyo xigdi ka buuxo waayo waxa uu qayb ka yahay dhaxalkeeda oo wax ka qaadan doono balse markii uu looyarkii akhriyay dardaarankii dhaxalka dadka dhamaantood waxay dareemeen naxdin iyo argagax way rumaysan waayeen waxa dhacaya waxay ogaadeen Alfonso inuu ka tanaasulay dhaxalkii uu ku lahaa islaantan geeriyootay
waxa uuna ka tanaasulay maalinkii ugu horreeyay ee uu taana guursaday. carruurteedii way rumaysan waayeen arrinkan, waxay aad uga shallaayeen xaasidnimadii iyo xiqdigii ay u qabeen ninkan iyo colaytankii la soo colaytameen. waxay weydiiyeen maxaad arrinkan u samaysay? wuxuu ugu jawaabay isagoo ooyaya, waxa kaliya doonayay waa iyada nolosheeda, haddii iyada ayaan doonayay, balse hantideeda muhiim ima ahayn. muhiim ma aha inaan dadka ku jeclaano dana inaga inoo gaara, balse waxaa muhiim ah inaan qofka shakhsiyadiisa jeclaano. muhiim ma aha hantidiisa inta uu sano oo jiro, balse waxaa muhiim ah inaan qofka ku jeclaano shakhsiyadda uu leeyahay qofkan. daawade, adigu ma guursan lahayd habar? weligaas ma jeclaatay habar? gabdhuhu waa iska ognahay oo iyagu odayaashu way guursadaan, laakiin wiilashu ma badna, waa dhif iyo naadir hadday jiraan. si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinkugu soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe, like, followda iyo shareta. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabadgelyo. salaamo markasta.